بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan markale dib u bilownay crash course cusub markaas project based ah waxaan baran doonaa insha Allah Next.js lagu magacaabo oo ah markaasi framework React taa markaas isku ah marka front end iyo back end labadaba isku ah marka insha Allah qofkii markaasi soo qaatay ama yaqaan ama u bilaaban tahay React simple tan uu la qabsan karaa waa bas ma dhamaan oo code-ki marka filosid gudihiisa waa isaga mid waxaan rabnaa sameeyna marka maadaama kan wuxuu noqon doonaa insha Allah score raal noqon doonaa project-kan koowaad waa shopping cart sameeyna caadi ah anagu markaasi muhiimadan ay tahay horta inaan fahanno in qaabka uu shaqeynayo waxaan in adinkan ogaatiin in waxaan tahay wax macna React aad macna uga dooneen tan markaas la fahanno kadib insha Allah koorsooyinka xiga marka waxaan sameyn doonaa ayadoo dhameystiran oo full taba qaybta front end oo kaligeeda ama back end APIs ki wixii aan u sameeyno database kan ku xirno kadibna markaasi aan ka dhigno wax dhameystiran oo front end back end labadaba isku ah laakiin qaybtan waa iska static caadi ah waaye data markaas waa file caadi ah laga soo aqrinaa dirtaan meesha ka muuqata saa aragtaanba waxaan oo sameeyay markaas grid system kan waxaan isticmaalay markaasi framework ahaan bootstrap waxaan ku dhisan garay qaabka haduu yahay waxaan kaloo isticmaalay markaasi Next.js isticmaalaya saa aragtaanba wuxuu ka kooban kartigan sawirkii iyo title-kii iyo badankii markaasi kaartada lagu dari lahay qaybta sare dhanka midigna waxaa ka muuqda markaasi kaartada marka hadda inay tahay eber waxban nagu jirin taa markii intaan gudaha u sii galin saa aragtaaba waxaan ku hoos garay markaasi Vercel ku hoos garay markaasi waa Next.js dadkii teamkii sameeyay oo ayaa markaasi Vercel idan ayaga iska leh marka sidaas darteed ayaan hosting ku sameeyay hosting free ah ay ku siinayaan oo domainkaas oo caadi ay ku siinayaan kadib adiga bedeli karo domainka rabtid aad ku xiran kartaa si free ah intaan ka soo gudbo hadii aan taabto plus aan taabto kaliya hadii aan siiyo saa aragtaanba waxa isbedel si automatic waxa isbedelaya qaybtaasi waxay noqotay 1 ee kaartada hadii inuu jirto sidoo kale option waxa isoo baxay markaasi cancel ah in kaartadas aad ka cancel karo hadii aan taabto 0 ayuu noqonaa saa aragtaanba kan uu qarsanaa okay hadan ka plus laba shay ku darsa aragtan keyboard kan iyo TP linkigan hadii aan kaartada fiiriyo click hadii aan siiyo qaybtan waxa iga soo muuqanaysa markaasi labada item hadda ku soo diray in magacyadooda sidoo kale dhinaca waxa iga soo muuqanaya markaasi total koodi ayaa meeshaas iga soo muuqanaysa taariikhda hadda tan waa hal item oo kaliya qiimihiisu yahay 39.99 kana sidaas la mid ah hadii laba ka dhigano waxaan taabanaa calaamada plus-ka sababta laba item ay noqonaa marka laba taabto automatic inta qiimaha isbedelaysa fiiri marka laba ku sii taabto marka la plus mujeda isbedelaysa markaasi waxay u dhacayaan automatic u dhacayaan ama baan page-na refresh samaysid sidoo kale kana sidaas la mid ah hadii aad rabtid hal xabo ka jari kartaa qaybtan aad taabanaysa hal xabaan ka dhiganaa ma la wadii halka aan ka sii bixino oo si taabano saarigtaan ba qaybta dhan ka baxay sababtoo ah item ka 0 dhahni oo ma baahna marka meesha dhan ka baxay hadii aan ku noqon shopping cart-keeni hal ayaa nagu jirto mid kale taado waa ay noqotay marka project arabna sameeyno waa project noocan ah kana aan sameeyno insha Allah inuu iska sahlan yahay aad u fudud yahay kaliya labadan page ka kooban page-kan home page-ka ah oo ku qoran tahay product-tigi iyo qaybtan ka markaas kaartada ku qoran tahay kaartada markaas laga update gareynayo labadaas qayb ay markaasi ka kooban yahay insha Allah kan waxaan iska noqon doonaa iska hordhac noqon doonaa project iska caadi ah simple ah laakiin qorshaha wuxuu yahay maadaama hore u soo baran database-ki oo soo baranay MongoDB aan soo baranay haddana React horena u soo baranay waxay Next.js marka aragno kadibna Next.js oo full ay arkayna course full ah oo leh markaas qaybteedii backend-gi anigu database-ki ku xiran insha Allah MongoDB aan ku xirana ama Postgres aan ku xiran labadaas midkood iyo qaybtan kale markaasi front end-ga markaasi inta ay ku joojinaya markaan kaliya video wuxuu noqday video iska hordhaca oo aan rabno inaan ogaano waxaan sameyn rabno course markaas aan rabno inaan bilaawno qofkii markaasi ku cusub channelka fadlan subscribe sar like comment share inta samee asxaabtaan markaas la wadaag si ay markaasi ay ugu faa'iideystaan